waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya aas qaran loogu sameeyay Allaha u naxariistee xildhibaan Saada Cali Warsame oo kooxo hubeysanay ay shalayto ku dileen magaaladaasi waxaana aaskaasi maanta ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya warbixintan iyo sida aaskaasi qaran u dhacay waxaa magaalada Muqdisho naga soo diray wariyaha Kalsan TV ee Muqdisho Cabdulcasiis Cali Guuleed meydka marxuuma Saada Cali Warsame ayaa salaada janaasada waxaa lagu tukaday masaajidka madaxtooyada halkaas ay kula dukadeen madaxweynaha dalka ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya intaas kadib ayaa waxaa meydka marxuumada loo qaaday isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho halkaas oo lagu aasay waxaana dugta ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Abdulle Sheekh Ahmed Maxamed wasiiro ka tirsan xukuumadda xildhibaano iyo fanaaniin badan dadkii ka qayb galay dugta ayaa muujiyay dareen murugo leh oo ay kaga xun yihiin dilka arxandarrada ah ee loo geystay xildhibaan Saada Cali Warsame oo iyada iyo darawalkeeda u waday gaariga shalay rasaas lagu harqiyay ay ku geeriyoodeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Abdulle Sheekh Ahmed Maxamed oo goobta aaska ka hadlay ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya aysan ka hari doonin dadkii ka dambeeyay dilka loo geystay xildhibaan Saada Cali Warsame magaca xukuumadda federaalka Soomaaliyeed waxaan ka dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dalka iyo dibaddiisa geeridii ku timid xildhibaanad Saada Cali Warsame fanaanadii weynay qofkii la yaqiinay oo wadaniyadda ahayd aad iyo aad baan arrintaas uga tacsiyeynaa ummadda Soomaaliyeed annagoo dhan isaga tacsiyeynaa waxaan kaloo tacsiyeynaa golaha shacabka federaalka Soomaaliyeed oo ay xubin ka ahayd oo runtii aan uga tacsiyeynaa qof weyn oo muhiim ah oo ay lumiyeen maanta ummadda Soomaaliyeed sidoo kale waxaan u tacsiyeynaa qoyskii iyo eheladii iyo awlaadii dadkii ay dhashay oo ay ka tagtay oo qaar ka mid ah saakta la hadlay waan u tacsiyeeyay waxaan leeyahay samir iyo iimaan dhamaanteen Allah naga siiyo geesta kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu aad uga naxay geerida xildhibaan Saada Cali Warsame waxa uu Ilaah uga baryay inuu jannadii uga bishaareeyo isla markaana waxa uu sheegay gudoomiyaha inay wax ka qaban doonaan dilka caynkan oo kala ah ee ku soo noqday gobolka Banaadir eheladii ummadda Soomaaliyeed guud ahaan inaan u tacsiyeeyo gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii iyo qoyskii ay ka geeriyootay Allah u naxariistee xildhibaanadii qaran fanaanadii qaran Saada Cali Warsame oo shalay kooxo nabadiid ah oo argagixisa ah runtii si fool xun ugu dileen magaalada Muqdisho oo arintaas runtii u taxsiineynaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ehelkii qaraabadii iyo soo maartay qoyskii ay ka geeriyootay waxay ahayd xildhibaanad qaran waxay ahayd fanaanad qaran oo caan ah oo laga jecel yahay guud ahaan geeska Afrika dilalka ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa muujinaya sida dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu fashilantay amaanka magaalada Muqdisho maadaama goobta lagu dilay xildhibaan Saada Cali Warsame ay ahayd goob ay ka agdhawaayeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya balse aysan ku bixin raggii dilay Saada Cali Warsame isla markaana ay sheegeen oo kaliya inay ku raad joogaan soo qaban doonaan cidii dishay Saada Cali Warsame Cabdulcasiis Cali Guuleed Kalsan TV Muqdisho